muxuu yahay ninka burcadda ah ee 30 sano ciidamada Talyaanigu raadinayeen ee xabsiga loo taxaabay Matteo Messina Denaro oo sidoo kalena loo yaqaano Diabolic waa madaxa maafiyada Sicilian waxa loo tixgeliyaa inuu yahay mid kamid ah hogaamiyaasha ama hogaamiyihii ugu weynaa ee burcadda Sicilian kadib markii la xidhay hogaamiyaashii ka horreeyay ee burcadda ahaa ee lagu kala magacaabi jiray Bernardo Provenzano 11 bishii Abriil 2006 iyo sidoo kale hogaamiyihii kale ee Salvatore Libecolo oo November la xidhay 2007 booliiska Talyaaniga ayaa xidhay ninkii loogu raadinta badnaa gudaha dalka Talyaaniga booski ama hogaamiyihii maafiyada deegaanka Sicilia oo 30 sano ay ciidamadu ku daba joogeen dacwadooga Talyaaniga ayaa warbaahinta u sheegay in Matteo Messina Denaro uu yahay hogaamiyaha ugu sarreeya haatan burcadda lagu magacaabo Cosa Nostra ee deegaanka Sicilia booliiska ayaa subaxnimadii Isniintii Square ka qabtay isla markaasina weeraray cisbitaal gaar loo leeyahay oo ku yaala caasimadda Sicilia ee Palermo halkaas oo 60 jirkan lagaga daweynayay xaalad caafimaad oo aan la shaacin isla markaasina lagu xidhay halkaasi Messina Denaro ayaa isaga oo maqan lagu xukumay xabsi daa'in kadib markii ay sheegeen dacwadoogayaashu inuu door ku lahaa dilal dhacay sanadkii 1992 dilalkaasi oo loo geystay dacwadoogayaashii ka dhanka ahaa maafiyada ee lagu kala magacaabi jiray Giovanni Falcone iyo Paolo Borsellino waxa uu sidoo kale waajahayaa xukun xabsi daa'in ah oo ah ku lug lahaanshaha weeraro bambaanooyin ah oo ka dhacay Florence, Rome iyo Milano sanado isxigay kuwaas oo ay ku dhinteen 10 qof xarigan Isniintii ayaa yimi 30 sano oo raadina kadib iyo waliba kadib hal maalin markii la soo qabtay madaxa sare ee isaguna burcadda ee lagu magacaabo Salvatore Toto oo isagana laga qabtay guri ku yaala Palermo 23 sano oo la raadinayay isagana John Dickey oo ah professor cilmiga luqadda Talyaaniga ka dhiga jaamacadda London isla markaasina ah khabiir ku takhasusay maafiyada ayaa ku tilmaamay qabashada Messina Denaro calaamad kale oo muujinaysa hoos u dhaca ku yimi burcaddii awoodda badnayd ee Sicilian waa tilmaan ama calaamad kale oo aad u muhiim ah taas oo muujinaysa in ugu dambeyntii ay laga guuleystay burcaddii Sicilian isla markaasina dawladdu ay ku guuleysatay in ay daciifiso burcaddii ama maafiyadii caanka ahayd ee Sicilia